السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيار تيدا قيمة يقدرين تمودنو كسو دوادا قضبدا ورركينا laga warqabaa in Ethiopia ay isku diyaarinayso xuska 188 ee guusha Adwa kaasoo ciidamada qalabka kala duwan ay si diiran uga qayb qaadan doonaan isla markaasina ay soo gabagabeeyeen u diyaargarowgii loogu talagalay munaasabadaasi xuska Adwa oo maalinkii Ethiopia ka guuleysatay kooxihii la dirirayay ee Talyaaniga isla markaasina ay noqotay wadankii ugu horeeyay iska xoreeyay gumaysiga sidoo kale qodobadeena waxaa ka mid ah shirkii lagu qabtay magaalada Diridhabe dhinaca amniga iyo qodobo kale ee wararkeenaasi la socod haboon waxaa magaalada Diridhabe lagu qabtay kun lagu qiimeynaya xaaladda guud ee dhinaca nabadgelyada degmooyinka oo wadaagta ee ka tirsan gobolka City iyo degmooyinka dhaca bariga iyo galbeedka Hararge ee deegaanka Oromada isla markaasna lagu sii xoojinayay iskaashiga ka dhaxeeya goboladaasi dhinaca nabadgelyada iyo amni sugidda loogana hortago wax kasta oo carqalad ku ah xasiloonida shacabka waxaan kulankaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiinta kala duwan ee maamulka gobolka City ee deegaanka Soomaalida iyo waliba sidoo kale mas'uuliyiinta kala duwan gobolada bariga iyo galbeedka Hararge ee deegaanka Oromada hay'adaha kala duwan ee nabadgelyada iyo amni sugidda ee goboladaasi kulankan ayaa inta uu socday waxa lagu gurfayay arrimaha la xiriira iskaashiga iyo ka wada shaqaynta gobolada deriska ah doorka hay'adaha nabadgelyada iyo hogaamintu ay ku leeyihiin adkeynta amniga meelaha soodimaha ah xoojinta isdhexgalka labada shacab ee walaalaha ee Soomaalida iyo Oromada isla markaasna uu ka dhaxeeyo iskaashi bulsho mid dhaqan dhaqaale lehna qiyam iyo taariikh soo jireen oo ku dhisan wada noolaansho iyo isjacayl waxaana gabagabadii kulankaas la isla meel dhigay in la sii xoojiyo kor loo qaado wada noolaanshaha labada shacab ee walaalaha ee Soomaalida iyo Oromada si codna looga hortago wax kasta oo gabaad ka dhiganaya bulshada dhexdeeda Cabdiqadar Ismaaciil SRTV gobolka City wafdi balaaran oo ay hogaaminayso afayeenka golaha xildhibaanada ismaamulka Diridhabe ayaa booqasho ku tagay goobo kala duwan wafdigan oo isugu jiray hogaaminta haweenka ismaamulka Diridhabe iyo mas'uuliyiin heer deegaan ah ayaa booqasho ku tagay xarumo kala duwan oo la hirgeliyay isbedelkii kadib waxaanan ka wareysanay Marwo Fadxiye Aadan oo ah afayeenka golaha xildhibaanada ismaamulka Diridhabe ujeedada ay u yimaadeen iyo waxyaabihii ay arkeen inta ay ku sugnaayeen magaalada Jigjiga marka hore waxaan dhihi karaa deegaankeena Soomaalida adeeg cusub oo soo baxay horumarin ama jid wado horumar ayuu ku taagan yahay wala dhihi karaa waxaan soo fiirinay jidadkii ka qabsoomay isbedelkii kadib waxaan kaloo soo fiirinay dhanka caafimaadka waxaan kaloo soo fiirinay xafiiska baarlamaanka ee deegaankeena ugu dambeyn imikana dalxiiska ama museumka deegaankeena waan soo fiirinay ugu dambeynna waxaan joognaa maanta gobolkii Faafaneed marka waxaan dhihi karnaa isbedel ballaaran ayaa ka taagan ka deegaan ahaan waxaana loo baahan yahay isbedelka inuu xagaayo sida fiican uu kasii socdo ta kalena waxaan dhihi karaa deegaankeenan run ahaantii anigu waan soo joogay dowladiina dhaaftayna waan soo joogo inkastoona aan ahaa hogaaminta hoose balse hogaamin sare kama mid ammaan ahaynin maanta waxaan dhihi karaa wax la taaban karo oo la arkayo indhuhu arkayaan ee gacanta lagu taaban karo yaa isbedel ka jira isbedelkana isbedel fiican waxaanan xukuumadeennana lagu badagaadiyo weeyaan waxaan dhihi lahaa shacabkeena deegaankana inay xukuumadeena garab ka siiyaan horumarkana ay wadaan si horumarka u sii socdo ka Dirdhabe ahaana waxaan maanta aragnay haddaan nahay ismaamulka Dirdhabe jidadkan aad u waaweyn ee dowladeena deegaanka wado walow kaana caafimaadka investigareeyeen waagii hore deegaankeena caafimaad ahaan uu liitay waa la dhihi karaa balse haba ahaatee markasta rifar ayaa loo soo diri jiray deegaamada kale loo diri jiray deegaanka Soomaalida balse maanta waxaan aragnay inay deegaamada kale maanta rifar u soo sameeyaan deegaanka Soomaalida marka waxaan dhihi karaa caafimaadkana waa la investigareeyay jidadkana waa la investigareeyay dowladuna waxaan aaminsanahay inay gacan bir ku hayso xagga horumarinta waxaana wax lagu bogaadiyo loogu mahadnaqo weeyaan marka waxaan dhihi lahaa dowladeena Allah ha barakeeyo shacabkeena waxaan dhihi lahaa insha Allah garab istaaga anagu hadaan nahay ismaamulka Dirdhabe khibrad fiican baan ku qaadanay waxaan rajayn doonaa khibradan maanta qaadanay inaan ismaamulkeena ku noqono oo sideeda horgelino dadka horta dowladii hore waxay ka aaminsanayeen baarlamaanka waxa laga aaminsanaa meesha dadkan waxba baran iskugu soo aruuri jireen meelaha la dhihi jiray gacmaha baa laga taagayay waxba kama soo horgalaan balse waxay deegaanku maanta uu jabiyay fikirkii ahaa sharci dejinta ama gaawji waxaan la yiraahdo inuu yahay dadkii meeshii dhanaa ee waxaan ku mashaariicda ka soo baxayeen meeshii dhanaa dalka laga maamulayay meeshii dhanaa dabagalka laga sameeyay marka haddii aan sharci dejinta aan adkeyn weyno waxaan ku sharci fulinta ama kooxda fulinta la yiraahdana hawshooda sidii uma qabsanayaan marka waxaan maanta arkay in dowladeenu saddexdii hay'adood bay ka dhisan yihiin sharci dejintii sharci fulintii
iyo le waxaan ku leeyahay garsoorkii ka dhisan yihiin marka waxaasna wax lagu farxo weeyaan wixii isbedelka mara dhalkii isbedelka waan dhigi karaa isbedelka ka hor dawladdeena wixii ka taagnaa ama deegaankeena wixii ka taagnaa waan ognahay bal isbedelkii kadib maanta miro la taaban karo miro waxaan ku macaankeegu la dhadhamin karo ayaa ka taagan marka waxaan dhihi lahaa insha allah inay xaggaa iyo xaggii si fiican ay usii wadaan magaalada Lughaya badda xeebteedii baanu fadhinaa waxaan halkan ka cadaynaynaa baddan Lughayaad ee laga bixiyay saldhigga military innaba inaanaan annagu raalli ka ahayn raallina aanaan ka noqon karayn marnaba aanaan ogolaanin ciddii isku dayda in ay samayso waxaasina amba ay keento dalal kale annagoo nalagala tashan dadka deegaanka ninna u daba fadhaysan mayno annagu dhulka ilaahayna dhigay annagaana naloo daba fadhaysan Somaliland maanta wuxuu ku jiraa meel halisa wuxuuna u baahan yahay badbaado waxa naga madnuuco xaaraana saldhig ciidan oo dal aan darisnahay weliba dawladaha dariskii saldhigiyo ma kala samaystaan waa shuruucda u taalla caalamka sidaa darteed Somaliland oo dhan baan leenahay ma anfaco bays ciidan oo Itoobiyaani meel kastoo dalka Somaliland ka mid ah ma anfaco sidaan taayada u diidnaan kuwa kale ugu diiday in saldhig ciidan laga siiyo degmada Lughaya iyo agagaarkeega hababa yaraatee wax saldhig ciidan ayaanan ogolayn ismigu iyo mishaan la'aan midna ogolayn waan ka soo horjeednaa yeelina mayno allahayow qorshahan waad og tahay qaabka uu yahay qaladiyo umaanan qasdin shay khasaaraaye saldhiggaaba habar muuso intii kalena waxay isku raacday inaanay oggolaan siday dee iskugu raaceen inay ugu dhintaan iyo inaad ka dayso labadaanbay mid noqon taasi